qofka xaaska qaba iyo qofka xaaska qabin isku mid maanan leedahay mugu xawaaji madaxow waxaan kala ku weydiinayaa maxaa sababay inaad dumaashi aad qariso wajigeeda aan social media soo dhigin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أموغواني سلام محاومة ليلة هنا في عندين أنا قنوا في أنا قرئين بايين بو صوت هذا ما مهين واي رينجوي واي مقو حواي جنالك تكو عسوتا وزب قراب صار مقال كان لك وكسبي مقو حواي يوتيوب وحوق حجي تمام مقالوا أبديد وحجي كتب له أبديد كان سونا قناة وراهي مقو نلد دالة لك وكسبي مقال كان مقو جمال جدا وحوق سودا وجنالكي آدي هذا ما سنتاي ولالكي قالي جمال جعيلو The Black Tiger aad iyo aad ku salaamaya adiga dhamaan asxaabta kugu xiran oo aad ku wada qurux badan oo community-da quruxda badan oo soo wada bixiyo laakiin waxa waa maalmahan asxaabtaydu hurdo maqayeen way soo kacayaan maadaama adigu gadaal hore ay u hurday sax oo hadda soo kacday ayagana ka fil inay soo kici doonaan insha Allah waxa waa sheeg qofna ma isbedelo laakiin waxa waa waqtiga sheega qofku wuxuu yahay mugo hawaay ku soo dhawaada marka Jamaal Dayax waxaan dhiiraba wareysina ma ahan laakiin waxa weydii rabaa su'aalaha aniga qaasa oo mar walba aan is weydiiyo waxaan sadaa mar oo Jamaal oo qabee ee weydii su'aalaha sida caadiga oo weydii lahay waayo waxaasnaan dad oo guris nool oo isla joogo waxa waay horta qofka aad maalin ku baraweyso sanado ma ku baranaysid mugo waxaan rabaa shanto su'aal oo qafiif inaan weydiiyo oo noloshiisa ku saabsan way adagtaa horta qofka noloshiisa inuu si been ah ama kale halkan ku soo bandhigo qof walba daacadiisa iyo wixii niyadiisa ku jiro uu sheegayaa mago waxa waay sheeg aan u gudugalay Jamaalow magacayga saxda ah bal noo sheeg horta magacayga saxda ah waxa la dhahaa Jamaal Cilmi Cali oo ku magac dheer Jamaal Dayaxna wuxuu ku baxay ani iyo saaxiibkii qaaliga halka salaamay Rashka Bulshaawi oo la dhigi jiray Jamaal Bulshaawi iyo Rashka Bulshaawi habeenkii asagoo sirriitiisa ku jiifay anoo sirriitayda ku jiifo baa waxaa dhacday inuu qabto teleefankayga uu soo qabto TikTok uu ku qoro Jamaal Bulshaawi ka tira Jamaal Dayax uu ku qoro Instagram Jamaal Bulshaawi ka tira Jamaal Dayax uu ku qoro Facebook Jamaal Bulshaawi ka tira Jamaal Dayax uu ku qoro Bulshaawi dhan uu ka haatiya saas kaligiisa ilaa wuxuu dhahay lama magac saaxiib hal qof wada qawato waa macquul ma aha ma sha Allah marka mugo saas waxa uu qoray sidaas wax isku bedeleen okay waxaan ku weydiinayaa halkay ku dhalatay aniga waxa ku dhashay Ethiopia meel la dhaho Wardheer ku dhalatay ma sha Allah aniga hal bilood jiro baa Nairobi li keenay sax waqtigaas ilaa iyo haddana Nairobi joogaa walow qaxootiga 4 sano ah joogay laakiin dib baa ugu soo noqday Nairobi oo ilaa haddana Nairobi kama bixin ma sha Allah marka waxa kala ku weydiinayaa ilaa kuma samadiiday nolosha iska bulanimada iyo nolosha guurka faqri noocee ah u dhaxay wallahi horta ilaahay isku mid kama dhigin sax qof mataqaana xaas qabi qof xaas qabin sax ilaahay horta isku mid kama dhigin midna mataqaana qof baa u dhaxayo qof uu mas'uul ka yahay sax qofka kalena oo iska bulada naftiisa bas uu mas'uul ka yahay sax laakiin qofka kale oo xaaska qabo xaaskiisana mas'uul ka yahay naftiisana mas'uul ka yahay marka wax la isku soo barbardhigi kara ma aha qofka xaaska qabo iyo qofka xaaska qabo isku mid maanan leedahay mugo xawaaji madaxow waxaan kala ku weydiinayaa maxaa sababay inaad dumaashi aad qariso wajigeeda aan social media soo dhigin horta su'aasha inkastoo ay adag tahay laakiin kaliya ma boqolaal qof way weydiiyeen balse waa awoodi waayay inaan jawaabtooda hal mar wada siiyo balse anagoo hadda ka faa'iideysanayno maxaan leedahay horta qof walba wuxuu jecel yahay xaaskiisa inuu u qarsoonaato ee u dhowrsanaato adiga maanta daa guursatid ma jecel xaaskaaga qof walba inuu arko waxaa jeceshahay inuu adiga keli kugu koobnaado marka sababta shakhsi ahaan aniga u guursado waxa waa dadka dhan inay arkaan inuu guursan aad iyo aad marka haddii maanta xaasadaa soo guursado social media aa keeno qof walba uu daawado wax faa'iido ugu jirta ma laha aniga badarkaas meesha laga raadsanayo haddaa dhahayd xaaskaaga u soo gelinayo meesha inuu dhibaato badan laga yaabo inaad kala kulanto waayo social media waxa waaye sheeg badanaa dadka familiyada ah oo social media ay keenaan
khilaafkooda badan soo sax ma aad iyo aad haddii adiga gabar aad tahay social media isticmaashid xaajigaaga ha keenin social media haddii adiga nin rag aad tahay oo social media isticmaashid xaaskaaga social media ha keenin labadiina asxan waxaa raban inuu qof ku jiro haddaa labadiina ka bixi kartaanna way ka qurux badan tahay inay ka wada baxdaan oo noloshiina si private ah u dhamaysataan okay marka waxaa kaloo ku weydiinayaa anigoo kusii dheeraanayni qisada jaceylkaaga lama eray hal iyo lama maxaa naga leedahay waayo sababtoo ah qof walba waad arkayso waxaas leh qiso gooniga uu leeyahay marka qisadaada wax yar inaa noogu sheekaysa rabnaa horta qiso waxaa keeno qof markaas la socotaan 7 sano iyo 4 sano iyo 5 sano iyo aniga xaaskayga 1 sano wada soconay halka sanna maalmaha ka mid ah waxaa isku aragnay meel mataqaana laga casheeyo oo weliba sikadiisa isku aragnay sikadiisa markaa isku aragnay waxaa marka doorbiday inaa qofkan anoo garanayni anoo ogeyn meesha ka imaatay iyo ayadoo ogeyn inaa ani social media isticmaalo labadeena iskama warqabin ayadana ma ogeyn inaa social media isticmaalo anigana ma ogeyn meesha ka timaade marka sidii marka aniga ayada aan intaa dhiig isgeliyaa u tagay maadaama aan ka helay soo jiidatay sidii intaa dhiig isu geliyaa u tagay nambarkeedana ka qaatay maantana xaaskayga aan nambarkeeda ka qaaday aad iyo aad waa ragnimo maantana xaaskaaga maasha allah lama erayo nagu soo qaatay waayo sababtoo ah wuxuu horu dhahay buu kastoo weyn sanado iyo kalaama qaadan laakiin waxaas la qaateen hal sano kadibna waad isguursateen maantana waxaa waaye ilaahay iskii daayo marka waxaa kaloo ku weydiinayaa maanta adiga guriga dhalinyaraan ahna waa isla wada noolnahay su-aasha ku weydiiya waxay tahay soona lagu jiro xaaska garabka midig way ka maqan tahay see dareemaysaa runaantii horta xaaska markii laga soo tago dhalinyaro badana hadda mataqaana guriga ku joognaa haddii dhalinyartaas ay qadaan ani waa qadaya haddaysan qadinna ma qadayo dhibka marka adiga la jiro inay weydiisid waa qalad laakiin waxaa waaye su-aasha meesha taal waxaa waaye badarka markaa karinayso kala ama cuntada kaliya jikada kala ku jira maxaa fakri weyna u dhexey maalo maray xaaska ay kula joogto iyo maray dhalinyaro iskaabul ay kula joogaan lama fakri weyn oo kala dhexey aad iyo aad ay su-aasha toosiya horta xaaskayga marna ana u karin jirin marna ayada ay karin jirtay waa sababta kaliftay maanta inaa aniga guri intaa soo dego aniga cunto aa karsado aniga qudaarta hal mar intaa baxo dadka badanaa markay dhalinyarta ay yihiin oo ragga ay yihiin khaasatan markii ay baxaan ee adeeg loo diro kuwa waxaa arkaysaa xaasho ku qoranayo oo dhahayo kiilo yaanyo iyo basal iyo wixii intay ka kala dhuman intay ka baqayaan ee qaarkood waraaqad lagu qori jiray oo ku bixi jireen ay ku soo laaban jireen laakiin aniga heer waxaa gaaray inta aa baxo inta adeeg maanta adeega hadday maanta kabsar caleen ee ka go'do waa ogahay anigaa baxaya waa soo adeegtaa marka waxyaabo badanaa familkeyga iyo xaaskeyga intaba uga mahadcelinaya oo xaaskaaga u mahadcelinaya riyaaq halkaana kaa salaameynaa si wada jir ah marka waxaa waaye su-aalihii qaybihii ugu dambeeya la marowaa jamaal su-aasha ku weydiina waxay tahay tan xoogaa way adagtaa su-aasha ku weydiina waxay tahay saaxiibada kuugu dhow ee aad maanta haysato halka noo sheegi kartaa horta maadaama aadan dhihin adiga saaxiibka kugu dhow waa kuma aad dhahday saaxiibada kuugu dhow oo jamca ka soo qaaday waayo waa nin dhalinyaro badanaa tahay dhalinyarta jecel marka sababtaasa ku weydiin horta waa dareemi kartaan saaxiib qofka noqdo iyo qofka aan noqonin saaxiib waxaa noqdo kan adigoo afka wax ka sheegin u fahmo saaxiib waxaa noqdo kan dhibkaaga u damqado saaxiib waxaa ah kan dheeftaada kula qaybsado kan dhibkaaga kula qaybsado kan marka aad xanuunsan tahay hoostaada joogo kan marka aad faraxsan tahay agtaada joogo kan maanta markaa xanaaqsan tahay ku dhahayo go-aan degdeg ha qaadanin kan maanta markaa faraxsan tahay ku dhahayo ballanqaad been ah ha qaadin maadaama aad faraxsan tahay ballan been ah ha qaadin horta saaxiib waa kan horta dhib iyo dheef intaba kula qaybsado ma aha keliya midka dheefta markay jirta agtaada imaado waa midka dhib iyo dheef intaba kula qaybsado anigana hor runtii ahaantii saaxiibo badanaa leeyahay weliba kala darajo sareeyo
adigoo saaxiibo maadaama dhalinyaro aad tahay oo dhalinyaradiina mataqaanaa ay kugu badan yihiin oo asxaab badan aad tahay qof furfuran aad tahay oo iska asxaab badan tahay saaxiibo waa yeelanaysaa laakiin saaxiibadaas adiga aad leedahay baa darajo kala dheeraanayo qof darajo dheer iyo qof darajo hooseeya intaba way iskugu jiraan ani asxaabteyda marka waa saaxiibo badanahay halkaan hal ilo ma ka sheegi kartay hal ilo haddaad waa ka sheegayaa ma ka gaari waxaa laga yaabaa dadki inay ku caajisaan oo maanta 50 daqiiqo ay noqoto 50 daqiiqo haddii la tirna waxaa tahay saaxiibo badanaa tahay marka waxaa waaye ugu dambeyn jamaal goormee rajeynaysaa xaaska inay dib u koontaan insha allah waxaa rajeynayaa markuu ilaahay yiraahdo ilaahay 3 sano ha kasoo wareejiyo mise 5 sano ha kasoo wareejiyo mise 1 bil ha kasoo wareejiyo mise 2 maalin ha kasoo wareejiyo waqtigu ilaahay shaligii kaxeeyay ii soo celiyo waqtigaasaa sugi doonaa insha allah waqtigu ilaahay kuu soo celiyo sugaysaa maasha allah anna waxaan jeclaa lahaa wiil adeer iyo abti u haba inuu ilaahay siiyo ama gabarba ha ahaatee marka waxaa waaye jamaal su-aal aad ama maasuntaa sida quruxda badan leh aan su-aalaha inaad ugu jawaabtay maadaama anigana su-aalo aan saayidan kuu soo diyaarsan keliya waxaan afka sheeg uu yahay saasay taana waxaa waaye su-aalaha sidii saxda noogu jawaabtay aad iyo aad ugu mahadsan tahay asxaabta aliya lama xaka leedahay meesha aana sana laga maqnahay asxaabta horta waxaa leeyahay jamaal jaceylow muddo badan u maqnaa waxaana rajeynayaa siduu usoo laabta adinkan inaa usoo laaban doontaan insha allah ilaan miyna ka raja dhigin jamaal jaceylow mar un waa sugayseen inuu dib usoo laabto kaamirada soo fadhiisto anuu muruqayaqaaya haddana sidaas lafooda ii jeedaan anaga dheer sidaas si lamid ah buu haddana asaga sidaa shalay u rajeynayseen inuu usoo laabto wuxuu u rajeynayaa inaa usoo laabataan weliba sida ugu dhaqsiyaha badan adinka waxaa ahaydeen daawashayaal ma ahayd adinka dadka daawanaya ahaydeen laakiin asaga maanta qof kala daawanaya hadda jeer wuxuu jecel yahay dad badan inay daawadaan balse qof daawanayo qof kale daawashadiisa waxba kama gelin marka siduu asaga idiin rajeynayo inaad dib ugu soo laabataan insha allah ugu soo laabta riyadiisa noo rumeeya riyo badan iyo rajo badan qof walba maanta adduunka leeyahay asagana riyadiisa iyo rajadiisa ma dhowo mana dheero insha allah adinkaana gaarsiin kara insha allah waxaa idin leeyahay si kastaba ha ahaatee noqotay soo jireenka dhaqanka iyo soomaalinimada dad kaga sarreynaa muuqaalka xiga noo balana midaan ku weydiinaya jey waa magaca leh sax magaca kalena muxuu ahaa bye bye